wiilkan dhalinyarada ah wiilkaagan dhalinta yar ee da'da yar ee ilaahay uu siiyey xoogga caafimaadka ilaahay uu siiyey ee haddana xooggiisa iyo caafimaadkiisa aanan ka faa'iidaysanaynin aanan ku shaqaysanaynin ku soo saaranaynin wuxuu cuni lahaa wuxuu cabbi lahaa halkuu seexan lahaa gurigu degi lahaa ee doonaya inuu ku tiirsanaado kayrkii in daa'iman gacantiisu inuu gacanta hoorsado oo uu baryotamo oo uu ku noolaado shaxaad ii dhiib wax isii iga bixi ii dhiib doonaya ee doonaya daa'iman in gacantiisu ay hoosayso u kaale xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam waa ka uu leeyahay xadiid muttafaqun calayhi alyad alculyaa khayrun min alyadi asuflaa waxaan la hadlayo cid kale maaha waa wiilashiinaan dhallinyarada ee wax soo bartay laakiin haddana aanan raalli ku ahayn inay shaqaystaan si ay u ilaaliyaan imajka sumcadda ee doonaya inay ku noolaadaan shaxaad kuna tiirsanaadaan kayrkii eeg xadiidku waa muttafaqun calayh alyad alculyaa khayrun min alyadi asuflaa gacanta sare waxay ka fadli badan tahay ka khayr badan tahay tan hoosaysa gacanta sare ee shaqaysanaysa xooggeeda ku shaqaysanaysa caafimaadkeeda ku shaqaysanaysa ee wax bixinaysa taageeraysa kayrkeed waxay ka sharaf iyo cizi badan tahay midda liidata tan la'iimka ah tan baryootamaysa tan daa'iman ku raalli ah in ay ku tiirsanaato kayrkeed xadiidku waa muttafaqun calayh saxaabadii markay afkaa udgoonaya rasuulka ay ka maqleen xadiiskan sala allahu calayhi wasalam wallaahi ma aanay fariisanin weligood kuma aanay tiirsanayn kayrkood oo iyagaa shaqaysan jiray laakiin way sii badiyeen inay kacaan u kaalay cali ibni abi aalib karama allahu wajhah wa radia allaahu canh cali wuxuu ahaa rasuulku ilmo adeer la ahaa oo laba walaalaa kala dhashay haddana wuxuu qabay gabadhii adduunka oo dhan u sharaf badnayd xabiibkan waad garanaysa sal slam ummadda oo dhan isagaa khayru khalqilah u ah rasuul waa ilaahay u soo diray cali hadduu maanta joogi lahaa yacni booska uu joogo oo kale waxa waaye oo uu gabadha madaxweynahana uu qabo waad garanaysaan wuxuu biilan lahaa baytulmaalka bangiyada dawladda sida kuweena hadda ay u biishaan soo ma garan laakiin kuma una raalli noqonin wuu diiday inuu waxado inuu gacanta taagto inuu hoorsado gacantiisa ay noqoto mid hoosaysa waa kuma cali ibni abi aalib karama allahu wajhah waa khaliifkii afraad ee islaamka ee rasuulka bedelay waa sal slam xataa wuxuu u diidayaa inay hoorsato gacanta xaaskiisa sharafka leh faatimatu zahraa faadimo maxay samaysaa iyadoo uur leh ama nuujinaysa ama dhabarka cunug ku sida ayay haddana diidday in ay samaysato shaqaale in loo shaqeeyo in loo adeego waxay raalli ka noqonaysaa faatimatu zahraa waxay raalli ka noqotay oo ay nafsadeeda doonaysaa inay isu adeegto inay ka maaranto gacanteeda in ay hoosayso iyadoo xaaladdaa ku sugan ayay shiidmare masago intay ku shubtay shiidaysaa waa gabar uur leh waa gabar nuujinaysa waa gabar dhabarka wax ku sidaa ubad ku sida oo yaa dhalay khayru khalqillaahi baa dhalay masagay shiidaysaa way dhididaysaa afkii adkaar bay ku haysaa tusaalaha idiin noqoto faatimatu zahraa cali ibni abi aalib oo saygeeda ah radia allaahu canhu wa ardaa waxaan la hadlaya waad garateen waa dhallinyarada wax soo dhammaysay waa dhallinyarada iskuulaadkii jaamacadaha ka soo baxay ee haddana cilmigoodii shaqo intay ku waayeen shaxaadka ku nool doonaya inay tahriibaan doonaya in ay gacan hoose noqdaan tusaalaha idiin noqoto reerkaa tusaalaha idiin noqdo waa faatimatu zahraa iyo saygeeda cali radia allaahu canhu wa ardaah waa ka uu dhahayo eeg laxamlu sakri
لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال يقول الناس لي في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال الله معولي لحمل الصخر من قمم الجبال إن أن حرقي قاطو قروين إن أن قاطو بر إن أن قاطو إن أن بور فولو وأن ديح سو جبيو يا ديح جبنايا وعلي رضي الله عنه وارضاه إن أن ديح سو جبيو وأن بورتي كسو قاضو ما هبنان إن أن كجبيو بور بان فولايا جهدي بان سمينايا وان ديدايا waxaan aadayaa buurt waan soo jibinayaa waan soo xambaarayaa dhagixii hoosan keenaa waan fuulayaa haddana waxaan u fuulaya ee aan u soo jibinay ee aan u keenayo waa maxay in aan gacan sare noqdo ayaan rabaa in aan ka maarmay in gacantaydu hoosayso in la ibiilo in aan ku tiirsanaado khayrkay in aan buuraha dushooda fuulon dhagax soo jibiyo yaa ayaan ka jeclahay in raggu uu wax igu sheegto la igu galladaysto أنا إسكول كبحيي أنا قوديي كردي بان كبحيي أنا دولساري وأها أنا مقالة كوهية ما بيسا إن سدا اللي ده وحان كجعلها إن دي تيجا مالا أيان كجعلها يقولوا يا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه يقول الناس لي في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال لكن تذكر حيليهن shaqadan waa xaaraan shaqadan waa maaragtay ceeb shaqadan waa shaqo gun ah waa shaqo liidata waa shaqo sharafkaagii uu ku lumayo anna waxaan ku yiri buu leeyahay waa hawsha aan haye ogow kaban baalashaya aniga dadku waxay leeyihiin laakiin war waxaan waa shaqo liidata hilib baan jarjarayaa kawaan laan ahay laakiin dadku waxay leeyihiin waa shaqo liidata bir baan tumayaa mindiyihi baan samaynayaa waxaan samaynayaa seefihi ayaan samaynayaa laakiin dadku waxay leeyihiin waa shaqo liidata ibliis baa u sheekaynaya laakiin anigu waxaan iri faqultu alcaar inaan kaba baalashay ceeb maaha oo aan dhididkayga maalo aan kaga kaaftoomo bariyada aan kaga kaaftoomo inay gacantayda hoosayso inaan kaba baalashay ceeb maaha inaan bir tuma oo aan seef iyo mindiyiisa inaan sameeyo ceeb maaha maxaa wacay saxaabadii yaa ka fadli badan waa dadku u dooray ridwaanullaahi calayhim ilaahay oo u dooray rasuulkiisa waa dadka islaamka inta keenay yaa u samayn jiray birihii iyo seefihii iyo warmihii ay ku dagaalami jireen yaa u samayn jiray iyagaa samaysan jiray ma sharaf dhac iyo ceeb bay u ahayd maya bal cizi iyo sharaf ayay ahaayeen aqwiye ayay ahaayeen gacan saray ahaayeen marka inaan kaba baalasho ceeb maaha ayaan oo inaan birtuma ceeb maaha hilib inaan jaro inaan timo jaro inaan maaragtaaye beer soo falo inaan dhagxaan jebiyo ceeb maaha laakiin waa maxay faqultu alcaaru fii dulli su'aal laakiin waxaa ceeb ah inaan wax horsado gacanta su'aasha dulligeeda mid la'iim ah xaqiir ah bakhiil ah ilaahay ka fog laakiin ilaahay uu hodmiyey yaa oo imtixaaman inaan albaabkiisa intaan istaaga wax isii inaan dhaho iga bixi kirada ijaarka iga bixi transbood isii caawa iga jajaban tahay shaxaad inaan ku noolaadaa ceeb ah inaan reeraha culays ku noqdaa ceeb ah inaan caajiz yaa mid caajizan inaan noqdaa ceeb ah kasal inaan iska jiifaa ceeb ah waxaa ceeb ah inaanan shaqaysanin waxaa ceeb ah inaan hooseeyo in dadku ii naxaan oo ay wax isiiyaan oo la yiraahdo kii reer ayna fulaan ayaa halkaas waxa loo ururiyo taasaa ceeb ah allah cali mar kale waxa la weydiiyey waxa la yiri madhullu dhulliga waa maxay sidiisaba ama adilla waa maxay muxuu yiri رضي الله عنه وارضاه وعجري أن يقف الكريم ذل وحواي أن يقف الكريم في باب اللئيم ثم يرده نك كريم كه حوق له عافيماتك وحبرتي حرفد له إنه استاغو انتو شقي سوايو إنه استاغو مد لئيم أهل باب كيس إنه استاغو مد حقيرة بخيلة لكن إلهي وحسيي الباب كيس إنه استاغو oo uu wax weydiisto iga bixi isii inuu yiraahdo yaa ii dhiib waa iga jajaban tahay cashay inuu dhaho kariimkii
xooggana caafimaadka qabay shaqaysan karay ayaa wuxuu istaagayaa albaab nin kaloo kayrkii ah oo bakhiil ah markaasuu gacanta u horsanayaa gacan hoosuu noqonaa markaasaa la soo celinayaa ilaa waa bakhiil ilaa waa la'iim xaaladaada ma oga haa marka wuxuu yidhi dulliga waa kaa walaalayaal islaamkeena dhalinyaro muxuu doonayaa islaamku wuxuu rabaa in ehelkiisa dadka muslimiinta ah inay noqdaan aqwiyaa aghniyaa acizaa inay noqdaan dad xooggan caafimaadkooda ku xooggan gacanta sare ku xooggan waxbixiska ku xooggan shaqada ku xooggan aanan shaqaya seenin haddayba xalaal tahay agarsoma inay noqdaan aghniyaa kuwa ghina nafs aan gacanta horsanaynin ku qanacsan xaaladda ay yihiin xaaladday ku sugan yihiin halka ay ku nool yihiin inay noqdaan acizaa kuwa madaxooda uu sarreeyo aan hoos u foorarin taasuu doonayaa waxaan ku soo khatimayaa cumar ibn alkhataab radi allahu canhu waardaah waa ka uu dhahayo cumar waa ka uu dhahayo laqad kunnaa adillaa faacazana allahu biاlislaam faida ibtagayna alcizata bigayrihi adallana allah waxaanu ahaan jirnay islaamka intaanu imaanin ka hor waagii jaahiliga waxaanu ahaan jirnay dad daliiliin ah xaqiiriin ah gacantoodu hoosayso aan aqoonin islaam xishmad aqoonin imeji sumcad aqoonin dadka laaya dariska aanan dhowrin khamriga cab ilaahay ka fog ibliis xir u ah ayaanu ahayn faacazana allahu biاlislaam islaamku ilaahay nagu cizeeyey waa islaamka maanta ahaysana faida ibtagayna alcizata bigayrihi haddaan cizi iyo sharaf iyo sumcad aan kayrkii ka raadinno kayrkii haddaan ka raadinno baryo ka raadinno gacanteenna inay hoosayso inaan meelaha soo baryo tanno cayd iyo balaayo aan qaadanno been inaan ku noolaano shaxaad ii dhib isii inaan ku haddaan cizi iyo sharaf ka raadinno kayrkii islaamkaana cizeeyey haddaan kayrkii ka raadinno cizi adallana allah ilaahay wuuna dullaynayaa wuxuu naga dhigayaa ummad hoosaysa ummad liidata waxaan ilaahay oga baryayaa dhallinyarada oo dhan inay marka hore ilaahay uu ku anfaco kelimaddaa iyada ah waxa ay barteen kuwa ku shaqaysta inay noqdaan gacan sare dhallinyaradeennu inay noqoto in ay noqdaan dhallinyarada kuwa cizatu nafsi leh kuwa arrimahooda ku dhammaysta si sharaf leh si aan daliil ahayn gacan sarraysa inay ku dhammaystaan iyagoo kor fiirinaya iyagoo faraxsan xooggooda caafimaadkooda kuwa ka shaqaysta inay noqdaan aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa hadalkanna intay maqlaysa keliya uma jeedi bal kuweena xataa dibadaha aaday dhallinyarada ku nool dhulalka galbeedka oo dhan ayaan hadalkan u jeedinayaa weligiin ahaada kuwa sarreeya kuwa aqwiyaa ah oo xooggan kuwa acizaa ah oo sharaf le madaxoodu kor jiro kuwa shaqaysta kuwa dabaqa islaamka waxaad muslimiin ku noqoteen islaamkan ciziga badan sharafka badan cizigeenna allah noo soo celiyo dhallinyaradeenna mustaqbalkooda mugdi buu ku jiraa allah u ifiyo kuwa ciziga islaamka soo celiya allah ka yeelo gacan sare kuwa ku noolaada allah idin ka yeelo ideelkiin aad baan runtii idin jecelahay istawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icuhu wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh